Assalaamu calaykum. Sidee ku cabiri kartaa dhaqaalaha waddan dhan? Aan dhahno koob shaaca ayaan ku gatay ama ku iibsaday 3,000 oo shilin Soomaali ah. 3,000 waxaa lagu xisaabinayaa GDP-ga Soomaaliya. Sidoo kale waa mushaarka qofka shaaca iibinaya. Wax walba oo kugu hareeraysan waxay ka tirsan yihiin GDP-ga waddanka aad joogtid. Waa maxay GDP? Waa mowduuceena maanta. GDP waa cabir muhiim u ah ogaanshaha caafimaad qabka guud ee dhaqaalaha. GDP waxay u taagan tahay Gross Domestic Product. Haddii si fudud aan u iraahdo, GDP waxay cabirtaa qiimaha dhammaan badeecooyinka iyo adeegyada waddan oo dhan. Taasi micnaheedu waa in la cabiraa waxyaabo badan. Marka la fiiriyo waddankeena Soomaaliya, GDP-ga sanadii 2018 oo ah kan ugu dambeeyay, maadaama kan 2019 ilaa ay hadda aan la soo saarin, waxa uu ahaa $7 bilyan. Halka Mareykanka oo ah dalka ugu GDP-ga sareeya adduunka, GDP-gu sanada 2018 uu ahaa $20 trilyan. Sidee tirooyinkaas lagu helaa? Waxaad ku xisaabin kartaa GDP-ga dhowr wadooyin oo kala duwan. Laakiin kan loogu isticmaalka badan yahay waa isla egta ama equation-ka ah consumption oo ah isticmaalka, lagu daray investment oo ah maalgashiga, lagu daray government spending oo ah qarashaadka xukuumadda, oo lagu daray net export oo ah dhoofinta, ayaa la eg GDP-ga. aan si fiican u kala dhigno waxa aan soo sheegnay. Isticmaalku waa waxa uu isticmaalo ama qarash gareeyo macaamilka ama qofka wax gadanaya, waana lacagta aniga iyo adigaba aan ku bixino badeecooyinka la taaban karo iyo adeegyada. Wadamo badan oo horumaray sida UK ama US, lacagta uu bixiyo isticmaalaha waa kala bar GDP-ga waddanka. Shayga labaad ee muhiimka ah ee equation-ka ama isla egta GDP-ga waa maalgashiga, investment. Wuxuu cabiraa inta lacag ah uu ganacsiga ku bixiyo waxyaabaha ay ka midka yihiin dhismayaasha, dhulka iyo qalabka. Ma aha kaliya ganacsatada waxa sameeya maalgashiga, sidoo kale isticmaalayaasha ayaa sameeya maalgashi sida inuu gato guri. Hadda waxaan imaanay qarashaadka xukuumadda. Waa lacagta ay dowladaha hoose ama dowlad goboleedka iyo qarankuba ku bixiyaan waxyaabaha la midka ah iskuulada, isbitaalada, wadooyinka iyo difaaca. Qarashaadka dowladaha waxay ku kala duwan yihiin waxyaabo badan, waxayna ku xiran tahay sida waddan walba uu isticmaalo badeecadaha iyo adeegga dadweynaha. Wax dhoofinta net export waa kan ugu dambeeya qaacidada lagu helo GDP-ga. Dhoofinta saafiga ah ama si kale haddii loo yiraahdo waa qiimaha ay dowladdu dhoofiso markii laga jaro qiimaha ay dowladdu soo dhoofsato. Wadamo badan ayaa leh negative export, taasoo micnaheedu yahay inay soo dhoofsato wax ka badan wax iyada dhoofiso. Tusaale ahaan, Soomaaliya 2017 waxay dhoofisay wax soo saar gaaraya $198 milyan, laakiin waxay soo dhoofsatay $2.2 bilyan, taasoo micnaheedu yahay dhoofinta saafida ama net export inuu yahay mid negative ah. Dal kasta wuxuu ururiyaa xogta isticmaalka macaamilka, maalgashiga, qarashaadka xukuumadda iyo dhoofinta saafiga ah. Tan ayaa ka dhigaysa GDP-ga cabir caalami ah iyo wado ay iska kaashadaan dalalka. GDP-ga ma ahan kaliya isku dar ay dadka iska daawadaan. Mararka qaar waxaa maqashaa heerka kobaca GDP-ga iyo isbeddelkiisa. guud ahaan haddii caafimaad qabka GDP-ga uu yahay mid fiican, GDP-ga kor ayuu kacaa. Haddii uu dhaqaalaha xun yahay, hoos ayuu dhacaa. Haddii laba rubac oo koritaanka GDP-ga ka mid ah oo isku xigta ay noqdaan negative, waxaa loo yaqaanaa hoos u dhac. Iyadoo ay sidaas tahay, haddana GDP-ga mar walba ma bixiyo sawirka dhammaystiran ee dhaqaalaha dowladda. Dhaleeceeyaasha ayaa sheegaya in isla egtu ama equation-ka awood badan uu saaro wax soo saarka, halka ay saarta awood aan la filayn adeegyada iyo dhaqaalaha digitalka ah. Sidoo kale GDP-ga ma cabiro sinaanta dhaqaalaha iyo wanaagga, xitaa haddii waddanka si dhab ah hodan u yahay. Marka loo fiiriyo GDP-ga, qaninimada ama maalka waxaa laga yaabaa inaan si aan sinayn looga helo. Sidoo kale waxaad ku dartaa in GDP-ga uu meesha ka saaro shaqooyinka aan lacagta lagu qaadan sida volunteer-ka, kamana saarayo qarashaadka ka soo gala wasakhaynta iyo howlaha sharci darrada ah. Khubarada qaar ayaa soo jeedinaya in la helo wadooyin kale oo lagu cabiro ama lagu helo GDP-ga dalka. Waxay soo jeedinayaan in GDP-ga dal kasta lagu daro farxadda dadka iyo tayada nolosha. Sidaan hore u soo sheegay, GDP-ga Soomaaliya ee 2017 waxa uu ahaa $7 bilyan. Taas micnaheedu ma ahan inay tahay xog sax ah, laakiin waa qiyaasaad ay sameeyeen hay'ado caalami ah. Maadaama xogta GDP-ga lagu helay ee Soomaaliya ay adag tahay in laga aruuriyo gudaha Soomaaliya,